markale iyo barnaamijkeena sheekooyinka jacaylka sheekada maanta sheeko xiiso badan oo muddo dheer sheekada magaceeda waxa la xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka sheekada waxa qoray Cabdiraxmaan Maxamed Guul waa mar kaleeto iyo sheekadeena xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii 11aad ay noo marisay Salma oo waalidkeed la gardaqsatay oo hadal dheer kula gardaqsatay kuna soo xidhay waxaan oori u ahaa nin aanay nafteedu rabin bal haddaba aynu u guda galno qaybta 12aad iyo sida ay labadii waalid u qaateen gardaqsigii Salma labadii waalid intii ay Salma hadlisay waxay u dhageysanayeen si taxadir leh oo mar qura inay kama soo bixin waayo waxay fahamsanayeen inay gabadhooda ku hadlayso wax xaqiiqda ku fadhiya laakiin markii ay Salma hadalkii ka baxday ayaa aabaheed hadalkii qaatay wuxuuna yidhi aabbo sida aad u hadashay wayna damaqday waanuna ka xunnahay dhibta naftaada la soo kulantay ee aad ka sheekaysay annaguna hadalkii aanu ku nidhi waanu kaa raaligelinaynaa ta kale aabbo waxaad sheegtay inaad muddo 4 sannadood ah aad ahayd qof mariida oo aan dhimasho iyo nolol midna ahayn laakiin aabbo maxaad mar hore taa noogu sheegi weyday kugumaanaan daawanayn dhibaatadee hooyo run oo iyana tiraanyo darteed ilmo ka hibatiqayso isla markaana dareensan inay iyadu tahay qofka ay Salma nafteeda u dhibaatootay ayaa hadalkii qaadatay waxayna tiri hooyo Salmaay haddii aanu ognahay in xaaladaadu sidan tahay marna kuguma aanu qasabnayn mursal iyo qof aanad rabin toona laakiin inkastoo aanad marna mooganayn sida aad noo jeceshahay iyo ixtiraamka waalidnimo ee aad noo hayso haddana maanta ayuun baan anigu ogaaday inaan dhalay gabadh qiimo badan oo garasho badan mana aanan filayn in aad mustaqbalkaaga oo dhan aniga ii burburinayso balse hadal iyo dhammaan wixii dhici lahaaba dhacee maxaanu hooye hadda yeelna oo aanu kula qabannaa Salma ayaa haddana hadalkii la wareegtay waxayna ku bilowday aabbe iyo hooyo waad mahadsantihiin dhibta aan idiin galayna waa wax aad xaq iigu leedihiin laakiin intaasi waxa iga ahayd uun xasuusin iyo waayo waran Salma way sii wadatay hadalkeeda waxaanay tidhi iminka aabbe iyo hooyo waxaan doonayaa inaan mustaqbalkayga ka shaqeeyo oo aan guursado nin ay naftaydu raali ka tahay laakiin wiilkii aan idiin sheegayay ee ay naftaydu ka heshay magaalada ayuu joogaa dabadiina cid kale naftaydu ma jeclaan welina igama bixin rabitaankiisii intii aan dalka ku soo laabtayna salaan wax ka badan isumaan dhaafin Salma oo waalidkeed rabta inaanu u sheegin inay kulmeen Subeer ayaa waxay tiri waxaase la ii sheegay inaanu weli guursan wiilkii sidaas darteed marka aan u waayo warramo haddii ay dareenkiisa iiga muuqato in aanu dib u yabyabi karno wixii naga burburay 4 sannadood ka hor waxay naftaydu raali ku tahay wiilkaas oo qura in aan nolosha la wadaago ee idinkuna aabbo iyo hooyo sida igu ogaada Salma marka ay hadalkan leedahay waa mar ay iyada iyo Subeer wax isla soo meel dhigeen oo ay iyana diyaar tahay Subeer dhinaciisa diyaar u yahay laakiin labadeeda waalid ay sheekada u sii bislaynaysaa waxayna ka sii afeef dhiganaysaa in aanay labadeeda waalid mar dambe ka hor iman rabitaankeeda Xaaji Abtidoon ayaa yidhi aabba gartaye maxaad annaga nooga baahantahay basena tusaysaa wiilka aad sheegayso ay naftaadu raalida ka tahay Salma ayaa yana aabaheed ugu halcelisay aabba arrinta qaybna aniga leh qaybna waxbaad ku leedihiin marka halkii aad kaga talagali lahaydeen weli may gaadhine aniga iga warsuga haye ayay labadii waalidba isla hal mar yiraahdeen dabadeedna Salma way ka dhaqaaqday labadii waalid iyaga oo weli fadhiya daaradii ay ugu timid ee ay ku sheekaysanayeen markii ay Salma ka dhaqaaqday ay Xaaji Abtidoon iyo islaantii Ruun isku jeesteen waxayna istusaaleeyeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada ay u geysteen gabadhooda ay kaligeed u badleeyeen dabadeed Xaaji Abtidoon oo islaantiisii la hadlaya ayaa yidhi marka ilaahay khayr kula damco ubadka badan iyo midka kaliya isku subu kugu barakeeya bal imaka eeg inanteeni nafteedii waxay u halligtay dhibtii adiga ku haysatay sida wax looga qaban lahaa waxaan leeyahay ilaahay taameel roon hamariyo khayrna ha siiyo hooyo Ruun ayaa iyaduna tix buraanbur ah oo duca ah la hiya kacday waxaanay tidhi
cadow kuma haleelo hooyo oo laguma ciilo weliga cimrigaagu noqo kiicisi leh alla kuma celiyo oo curad raagto noqo cawi iyo nasiib caadil kuugu deeq haar caraafin oo rays cagaha la gaadh ilaah baan kuu cugtee caano iyo guri nabdoon cudoonay hooye khayr ku waar hooye ruun markii ay tixdaa buraanburka ah ama ducada ah ay qac ka siisay ayay odageedii la hadashay waxaanay ku tidhi xaaji abtidoonow waa tii la yidhi shuruudi aabbahaa ka weyne maxaynu yeelnaa oo inooga ballan ah wiilka ay gabadheennu inoola timaaddo ee ay tidhaahdo wiilkan ayaan doonayaa oo aan guursanayaa ma kula tahay in aynu raacinno oo aynaan wax hadal ah ka keenin oo aynu isu dayno iyadii nasiibkeeda ducana u raacinno xaaji abtidoon oo ka jawaabaya hadalka islaantiisa ayaa isna yidhi ruunay hadal kale ma jiree maanta wiilka ay gabadheennu inoola timaaddo waynu u hibeynaynaa ducana waynu u raacinaynaa ballankeenuna waa kaa oday xaaji abtidoon iyo islaantiisi waxa ay isla garteen ama ay isla qaateen in ay gabadhooda wiilka ay calmato ee ay ula timaaddo ay ugu duceeyaan salma markii ay ka dhaqaaqday labadeedii waalid oo daaradda hore ee guriga fadhiya waxa ay gashay qolkeedii gaarka ah waxaanay markiiba taleefon kula xidhiidhay subeer oo isna qolkiisa joogay dabadeedna bahal sheeko ah oo xiiso leh ayaa la halloosiiyey salma marka ay taleefonka dhigta ku hayso waxaad mooddaa inuu sayloon ku rakiban yahay jidhkeeda waayo intay taleefonka beerka la dhigtay ayay dareenkeeda oo dhan siisay dhegaysiga weedhaha subeer u soo marinayo khadka taleefonka oo ay aad u macaansanaysay taasoo dhaqdhaqaaqa yaraanteeda aad mooddo sidii qof suuxsan oo aan dareenkiisuba waxba ogayn salma waxaa qalbigeeda iyo sanbabadeedaba saaqay subeer oo ku afuufay weedho macaan badan oo ka soo burqanaya mawjado gaaxsanaa oo jacayl ah subeer qolkiisa ayuu hoosta ka soo xidhay waxaanu hablahoodii ku yidhi cid kastoo i doonaysa ma jooga ku dhaha subeer sidii qaalin geel ah oo curatay ay ilmaheeda uga ilaaliso bahallada iyo cid kastoo u soo dhowaata ayuu taleefonkii dul fadhiistay uu hareeraha qabsaday kadibna intuu madaxii taleefonka dhigaha la eegtay ayuu sariirta dusheeda la dhibcay wuxuuna dareenkiisa oo dhan u hibeeyey dhegaysiga weedhaha uu macaansanayo ee ay salmi u soo marinayso khadka taleefonka iyo u halcelinteeda wakhtiga la wada hadlaya waa goor galab ah oo qorraxdu casar gaaban joogto oo ay leydh qaboobina dhacayso salma tan iyo intii ay dalka dib ugu soo noqotay habeen qudha hurdo si fiican u meylidin waayo waxaa dareenkeeda ku ooganaa ugu yaraan dhowr arrimood ay uga horreeyaan sidii ay warqaddeeda uga heli lahayd mursal iyo sidii ay mar kale niyaddiisa iyo rabitaankiisa u kasban lahayd ninkii uu waayaha jacayl dhex maray ee ay ku wacad furtay waa subeere hase yeeshee salma waxay soo gaadhay xilli ay xaaladdeedu u muuqato inay labadii duruufood ee dareenkeeda aad u xaganayay ay ka soo gudubtay sidaas darteed salma markii ay maalnimadii u warrantay aabbaheed iyo hooyadeed isla markaana ay galabnimadii taleefonka isku waraysteen subeer habeennimadii si fiican ayay dhinaca dhulka u dhigtay waxaana seexatay hurdo aanay iska daa maalmo iyo bilotoone xataa aana seexan labadii sannadood ee u dambeeyey sidaas darteed habeenka mar qudha iskamay rogin dhinaca ay u jiibsatay fiidkii hore salma maadaama ay habeenkaa ku seexatay jawi xasiloon oo ay hurdada si fiican uga bogatay waxay subaxnimadii la soo toostay dareen firfircoon iyo furfurnaan aan indhoweedba lagu arag sidaa daraaddeed goor hore ayay ku fooftay hawshii gurigooda wax kastana jacyamac ayay ka siisay salma waxay maalintii oo dhan adeeg hufan iyo firfircooni dheeraad ah gurigooga kaga shaqaysaba waxaa la soo gaadhay xilligii kala wareegga maalinta iyo habeenka oo ah aminta maqribka loo yaqaan iyadoo habeennimada soo gelaysana salma ballan la leedahay subeer hase yeeshee salmi maaha qof goor dambe ku hambaaburaysa ballantii ay lahayd ee casar dheere ayay hoosta ka diyaargarowday wuxuu wakhtigu isguraba waxay aamin sheegtu ku dhowaatay 7 fiidnimo sidaas darteed waxay soo dhowaatay xilligii ballanta dabadeedna salma iyada oo ay dhowr mirir ka harsan tahay xilligii ballanta ayay ka soo booday gurigooda waxayna afka saartay goobtii ballantu ahayd 7 fiidnimo oo hal mirir dhiman ayay salmaysa soo taagtay goobtii ballanta sidoo kale subeer oo isla maalintii oo dhan istaanbay u ahaa ballanta ayaa mirir kadib markii ay salmi timid isna isa soo taagay goobtii ballanta isagoo oo watay baabuurkiisii dabadeedna way israaceen waxayna u kaceen restoorankii ay habeenkii hore ku soo sheekaysteen habeenka waxaa casuumadda fidiyey subeer halka ay habeenkii hore salbi casuumadda qaabishay cabbaar markii ay salme iyo subeer baabuurka ku soo dhex sheekaysteen ayay soo gaadheen hodheelkii waxaanay fadhiisteen goobtii loo sii diyaariyey marka laysku eego labada habeen way u kala duwan yihiin labada qof waayo habeenkan dambe ayay subeer iyo salbi ka farxad iyo yidadiilo badnaayeen habeenkii hore
taasoo ay ugu wacan tahay horumarka ay ka gaadheen dib u noolaynta xayaatoodii caashaqa ee naafowday. sidaas daraaddeed habeenkaa waxaa Salme iyo Subeer wejiyadooda ka muuqatay farxad, qushuuc iyo qalbi degan. markii Subeer iyo Salme salka dhigeen kuraastii iyo miiskii loo dhigay, waxay bilaabeen sheeko isxaal waraysi ah, taas oo ay wax iska weydiinayeen bal waxa arrimahooda ku soo kordhay labadii caano maal ee ay kala maqnaayeen. Subeer oo u muuqday inuu u hamuumayo inuu ogaado bal waxa ay ku dhammaatay sheekadii dhex martay Salme iyo waalidkeed ee la xidhiidhisay qadiyadooda, ayaa markii ay fadhiisteen hadalka bilaabay. waxaanu yidhi, walaal Salmaay, bal iiga waran, intaad wax ii taataabatay ayaanad haddana ii balballaarin. iiga waran sheekadiidii dhex martay adiga iyo labadaada waalid, sidee bay u arkeen qadiyaddii aad u soo bandhigtay? Salma ayaa hadalkii qaadatay, waxaanay tidhi, walaal Subeerow, ha iga degdegin, si faahfaahsan ayaa sheekada kaaga dharginayaay, balse waxaa laga yaabaa haddii aynu hadda bilowno inay inala dheeraato. ma kula tahay inaynu horta iska cashayno, kadibna markaynu cashada ka soo jeedsanno si fiican u sheekaysanno? markii ay Salme tidhi intaynaan iswaraysan horta aynu cashayno kadibna aynu sheekaysanno, ayuu Subeer ugu jawaabay, gacaliso Salmaay, cuntada warkaagan uga baahi iyo bohoryow badanahay oo raashinka u hamuumi maayo, ee waxaan u hamuumayaa sidii aan uga haqabeeli lahaa warkaaga iyo xaaladaada. markii uu Subeer sidaa yidhi, Salma waxay go'aansatay inay waxoogaa war ah u yar qadinto. waxaanay tidhi, Subeerow, haddii aan kuu sheego wixii aniga iyo waalidkays nidhi iyo halkii ay arrintu isugu biyo shubatay. marka hore waxaan uga warramay inaan anigii Mursal kala faatahaysanay oo aanu isfurnay, warqadaydiina uu ii soo diray. mar labaadkiina waxaan dareensiiyey in aan hadda kadib mustaqbalkayga ka shaqaynayo, aniga oo weliba u saray ama u taabtay inay dan iga hayso wiil aanu beri hore caashaq wadaag ahayn oo aanu aad isugu dheernahay. dabadeed markii aanu arrintaa dhinac walba ka eegnay, aan anigu si fiican u hoga tusaaleeyey waxa aan damacsanayay iyo dareenkayga wakhtigan xaadirka ah, waxaanu aakhirkii aniga iyo waalidkay isla qaadanay in maanta taladeeda la ii daayo, taasoo waalidkay ila ogolaadeen inay iigu duceeyaan wiilkii aan ku qanco ee aan soo xusho oo ay raalli igala noqdaan. markaa Subeerow, arrintu waa sidaase, maxaa kaa dhiman? miyaanay intaasi kugu filnayn oo aanan anigu soo dhammayn dhinacaygii? Subeer ayaa isaguna yidhi, Salmaay, war farxad leh ayaad ii sheegtay, aadna waad u dadaashay, laakiin waxaan kuu sheegayaa warkaa aad maanta labadaada waalid u sheegtay ee aad ka soo dhammaysay waa warkii aad u sheegi kar weyday 4 sannadood ka hor. hase yeeshee wax badan baynu busta saarnay caashiqayne, maanta aynu ka bareedhno oo aynu soo afjarno arrimaheena. Subeer isagoo hadalkii ku dhex jira ayaa la soo hordhigay cuntadii. dabadeedna Subeer intuu sheekadii joojiyey ayuu yidhi, Salma, fadal iyo wadaag xiisa leh gacaliso. Salme iyo Subeer si degan oo farxadi ku dheehan tahay ayay u wada casheeyeen, iyadoo ay cuntada dusheeda isku dhaafsanayeen weedho xiisa leh. Salme iyo Subeer habeenka xaaladoodu waxay uga dhignayd sheeko dhammaatay oo ay yihiin sidii laba qof oo aanay waxba u harsanayn oo nin iyo ooridii ah. Salme iyo Subeer markii ay casheeyeen kadib waxa ay cabbaar ku sii nagaadeen goobtii, halkaas oo ay sheeko macaan oo la xidhiidha arrimahooda ku sii qaadaadhigeen. hase yeeshee habeenkaa umay raagin sidii ay habeenkii hore u raageen, sidaas darteed goor hore ayay ka soo baxeen hodheelkii. Subeer iyo Salma oo ay dareenkooda hadhaysay farxad iyo yididiilo aan hore loo arag ayaa intay ballameen. dabadeedna Subeer intuu Salme dhigay albaabka gurigooda hortiisa ayuu isaguna iska hoyday. laakiin Subeer markii uu guriga ugu tegey markiiba muu seexan, waayo kar baa ku taagan. sidaa darteed wuxuu go'aansaday in inta aanu seexan inuu aabbihii u sheego arrinta cusub iyo halka ay xaaladiisii guurku marayso. dabadeedna Subeer intuu u tegay odaygii aabbihii oo qolka fadhiga ku sugan ayuu u bilaabay sheekadii. waxaanu ku yidhi, aabbo gacaliye, caawo ma kuu sheegaa arrin aad in badan iga sugaysay jawaabteedii? odaygii ayaa ugu halceliyey wiilkiisii Subeer, aabbo ma adaba ka daayo, bal ii sheeg. dabadeedna Subeer baa sheekadii hoos ugu tegey, wuxuuna yidhi, aabbo wax badan baan ku lahaa, gabadh baan soo xulanayaaye, maanta ayaan arrintaa ka sidaa go'aankii kama dambaysta ahaa. sidaas darteed waxaan doonayaa in aynu u tagno gabadhii aan guursan lahaa reerkooda oo ay inoo hibeeyaan. odaygii Dhamal ee Subeer aabbihii ayaa yidhi, aabbo war wanaagsan baad sheegtay, laakiin waa ay gabadhu? ma tahay gabadh aan garanayo mise waa mid aanan garanayn? bal ii sheeg ina ayadeeda. Subeer ayaa u jawaabay aabbihii, waxaanu yidhi,
aabbo gabadhu waa ina xaaji abtidoon oo waa inantii aan berigii kuu sheegayay ee aan kugu odhan jiray gabadhii aan doonayay in aanu isguursanno waxa la siiyey nin ay ilmaabti yihiin oo dibadda ka yimid ninkaas oo markii uu guursadayna dibadda ula dhoofay odaygii Subeer aabihii ayaa ku yidhi aabbo gabadha aad sheegayso mee ninkii guursaday 4 sannadood ka hor Subeer ayaa ku jawaabay aabbo dhawaan bay isfureen gabadhiina hadda magaalada ayay joogtaa oo way ka soo noqotay dibaddii ninkiina wuxuu jiraa meeshuu awalba ku noolaa oo ahayd dalka Jarmalka waxaanu qabaa naa kale odaygii ayaa haddana hadalkii la wareegay oo wiilkiisii ku yidhi aabbo Subeero ma waxaad door biday inaad guursato gabadh Carmal ah oo 4 sannadood la qabay maxaa kuu diiday inaad guursato gabadh yar oo aan fari gaadhin maxaase kaa hortaagan inaad gabadh timadidcan ka xulatid waxa gabadh qurux badan ee magaalada dhex mushaaxaysa maadse ilowsan tahay in gabadhani tahay tii burburisay farxadda gurigeena 4 sano ka hor marka laga yimaado adiga oo dhibaatada inta ugu badan ku gaadhay ma waxaana dareensanayn dhibaatada gaadhay reerkeena inta kale oo aan ilaa hadda uga boqo in ay saamayso hablaheena aabbo waan ogahay inuu jacaylku jiro laakiin ma qabo in waqtigan uu jacayl ku qaban karo gabadh caynkaas ah arrinka aad weydiinaysana haddii aan ku dhalay oo aad in badan baan ku dhigaystay warkayga maqlayso waxa iga go'aan ah oo aan ku leeyahay in aad raadsato gabadh kale Dhamal isaga oo si faahfaahinaya ujeedooyinka uu ku diidan yahay gabadhan wuxuu yidhi maaha ceeb in ninku guursado gabadh ka weyn sidoo kalena waa suuragal in wiilka dooqiisu noqdo gabadha garooba ama Carmal ah laakiin waxaan marnaba suuragal ahayn in ay gurigeena soo gasho gabadhii aad ogeyd sidii ay inoo gashay Subeer ayaa hadalkii aabihii ka jawaabay waxaanu yidhi aabbo gacaliye maan waayin gabadh kale iyo gabadh ugub ah toona laakiin naftaydu waxay rabtaa gabadhan mana jirto cid aan ku doorsanaya iyadoon aaminsanahay in aanay dhulkeenanba ku noolayn gabadh la qiimo ah oo u dhiganta sidaas darteed aniga iyada unbaa icajabisay mana jirto gabadh aan iyada ahayn oo ii cuntamaysa waxayna gabadhan ahayd gabadhii u horreysay ee aanu istoorano ee aanu jacayl wadaagna noqonno mana jirto gabadh kale oo indhahaygu arkaya marka aabbo ii ogolow gabadha ayaan soo xushay isla markaana aynu dhaqso ugu tagno reerkooda oo u sheegno in aynu gabadha ka guursanayno oday Dhamal ayaa dabadeed haddana yidhi aabbo Subeerow waxaan ahay nin weyn oo aqli iyo aqoon leh marka waan garanayaa rabitaanku wuxuu yahay waana fahamsanahay in laba qof isjeclaan karaan oo uu jacaylku yahay wax jira balse aabbo waa goor dambe sidaas darteed arrintani ma aha mid si sahlan aan u yeeli karo sidoo kalena waxaan u malaynayaa in aanad aabba fayoobeen ee waxaan ku siinayaa muddo 3 cisho ah oo aad kaga soo fikirto arrinkaaga kumana ogolaan doono anigoo intaa kugu soo tabcay kuguna ogeyn wax iin ah oo aan kuuga ogolaado gabadha Subeer oo aad uga warwarsan sida qotada fog ee uu aabihii uga soo horjeedo arrinkiisa talana ku cadaatay ayaa isaga oo aan geesnaba eegin ka dhaqaaqay halkii ay ku wada hadlayeen isagii aabihii waxaanu si cagajiid ah ku galay qolkiisii waa habeengelinkiisa hore oo ahaa mid farxadeed aad moodo inuu ku soo gabagaboobayo si murugo leh waqtiga iska caynkaas ah oo waayaha dhibkiisa wataa hore loo yidhi habeenkaana muuse xan Subeer oo kolba dhan buu isku rogrogay oo heestan baa maskaxdiisa ku soo noqonaysay mar buu ku wanaajiyaa waqtigu ku hiiliya walaalkii ka dhigaa sidii waqalku daa mar baad kala weecataan waayuhu cadu ku noqda wacdiga aad aadmiga fartaa mar buu wari ku dhalaa adduunyay waa la leeyahay adduunyay waaya badan markuu ku wanaajiyaa waqtigu ku hiiliya walaalkii ka dhigaa sidii waqalku daa cidaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn arbad kala weecataa wayuhu cadu ku noqdaa wacdiga admiga fartaa markuu wareegu dhalaa la soco qaybta 13aad ee sheekadan xiisaha badan ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka kana tahay ruux la weyn cidaadana lagu qoslaa kana tahay ruux la weyn arbad kala weecataa wayuhu cadu ku noqdaa wacdiga admiga fartaa markuu wareegu dhalaa
wadnaha isku qabo